gudoomiyaha hay'adda khayriga ee u gargaar dadkaaga oo u adeega dadka tabaalaysan Maslax Salebaan Sidde ayaa maanta kaalmo lacag oo dhan $430 oo ay soo direen dad muxsiniin oo Soomaaliya gaarsiiyay Maxamed Shire Ogle oo muddo dhowr iyo 10 sano ah qabay xanuunka dhimirka isla markaana dayax xoogani ka muuqday. Maslax Salebaan Sidde ayaa si rasmi ah deeqdan farta uga saaray hooyo Sahra Nuur Cabdi oo ah hooyada Maxamed dhashay. maanta oo maalin Arbaca taariikhdu bisha tahay 7 sidoo kalena bisha Ramadaan ee barakeysan ayaduna maraysa 12 waxaanu joognaa deegaanka Goddoob oo dhowr kiiloomitir ilaa 3 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan degmada Wada Og waxaanu la joognaa Maxamed Shire Ogle oo hore muuqaalkiisa u daawateen isla markaana ah nin qaba xanuunka dhimirka muddo dhowr iyo 10 sano waxa weeye geed hoosti ka lalaaday oo aan halkan ku soo booqanay meeshan cidlada ah ee waxa weeye dhaxanta ah ee bacadka milcida ah ujeedka maanta ugu nimi Maxamed iyo hooyadii Sahra Nuur Cabdi oo ahayd islaantii waayeelka ahayd muuqaalka ka daawateen ee waxa weeye Maxamed la tabcaansaneed waa inaanu guddoonsiino isla markaana aan soo gaarsiino deeq lacageed oo ay soo direen dad muxsiniin ah oo meelo kala duwan jooga deeqda lacagta oo dhan $430 oo runtii waxa weeye markii la arkay muuqaalka aadka u naxdinta badan leh ee urka u gargaar dadkaaga uu soo bandhigay runtii ay si aad uga damqadeen lacagtaasi waxa nagu soo hagaajiyay Yuusuf Cabdillaahi Cawad oo jooga waddanka Norway wuxuu soo diray $100 Muna Axmed Xasan oo joogta Mareykanka waxay soo dirtay $100 Nasra Cilmi oo joogta Ingiriiska waxay soo dirtay $100 Sahra Isxal Maxamuud Dhunkaal oo joogta Hargeysa waxay soo dirtay $50 gabadha Qadra Axmed waxay soo dirtay $80 lacagta marka total guud la isku geeyo waxay noqonaysaa $430 ayay noqonaysaa waxaana lagu soo hagaajiyay ururka u gargaar dadkaaga oo had iyo jeer soo bandhiga dadka tabaalaysan waxaan halkan uga ducaynaynaa dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed ee jooga wadamada kala duwan ee haddana ururka u gargaar dadkaagana soo wakiishay ee nagu soo aaminay deeqdaasi waxaan leenahay mid kastaba Ilaahay qeyr iyo xasanadaha ugu daro wuxuu la soo baxo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye maalinta aakhiro uu baahan yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku abaal mariyo runtii sadaqadu ma aha waxaad cid ugu deeqday ee waxaad adigu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa aad sii dhigatay oo maanta maalin aan ahayn baad u baahan tahay waxa weeye Ilaahay hortiisa aad ka helaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu ka rajaynaynaa intii xanuunsanaysa in Ilaahay xanuun ka kor qaado intii muraad ula baxday muraad leen Ilaahay muraadkooda san gacanta midig uu ka saaro Maxamed kaliya wuxuu u baahan yahay daryeel wuxuu u baahan yahay in lagu tabco wuxuu u baahan yahay in waxa weeye wax loo qabto waxaan muslimiin ku nahay ee Ilaahay nagu walaaleeyay waxa weeye marka dadka noocan oo kala aynu aragno inaynu wax istarno waxa weeye kuwa wax haysta ee ladan ee Ilaahay wax siiyay ay wax taraan walaalayaal waxa mar labaad iyo mar saddexaad ba haddana nahay ururka u gargaar dadkaaga aan codsanaynaa maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan in cid kasta oo muuqaalkan aragta ay ku soo dhiirato waxa weeye ay Maxamed wax tarto Maxamed maanta laga bilaabo waxa weeye goobtan waa laga kaxaynayaa waxa weeye guri baa la geynayaa Ilaahay dartii waxa weeye u soo caawiyo oo la soo bax hooyo Sahra Nuur Cabdi ayaa ka mahadnaqday deeqdan isla markaana u duceysay dhammaan muxsiniinta waxayna codsatay in loo soo kordhiyo kaalmadani waxaan u codsanayaa dadka muslimiinta ee walaalahaya ee dartay halka ka sida kanoo soo dhiibay mid walba in Ilaahay janno firdawsa ka waraabiyo cudurka haya in Ilaahay ka kor qaado ducadii waan duceeyay Ilaahay ha ka kor qaado waynoon naxariisteen Ilaahay ha naxariisto naxariista adduunka iyo naxariista aakhirada Allah siiyo annagu wax nacaawiya ayaan u baahanahay sidaas aanu nahay wixii nacaawiya ee waxna taraka noo socda kanoo hadla kanoo keena mid walba Ilaahay waxaan u barinay wax Ilaahay khayr siiyo خير بانو قدعين عافمات بانو قدعين عدي بلارن بانو قدعين عينانا بركة لانو قدعين إلهي اللي انكاها كابا المري وكرها خسي مسلح أيا إيك يا عي مسلح أيا إيسو مسلح يمدى مسلح بايدونك إيسو مري إلهي خير هسي خير بانو قدعيو يا بنا خير مرول بقى أيانكو قدعي ما شاديك تبالك عمدين هذا قلنا الله كابت كدي انت إليه وهو السلام هاي ودما حنوني وصومناي ونذكر marka sidaas aan idin ku duceeyay annin kaana magaalada geynaya
hal meel baan iskaga xidhayaa ninkan maryo qaadanaya maaha nimaan u taagalaya maaha markaa meel baan iska geynayaa meeshaas ururka u gargaar dadkaaga uu hormuud ka yahay saxafi Maslax Salmaan Sidi ayaa muddooyinkii u dambeysay ku hawlanaa caawinta dadka jilicsan waxaana uu door weyn ka qaatay abaarihii cuslaa ee ka dhacay dalka. Salmaan Cilmi Saciid, wararka baahinta ururka u gargaar dadkaaga Caynaba.